عدايسيتو نفط ساخي sawirkaaga labta ii suran cadaysito nafta saakhe sawirkaaga labta ii suran adlan channelka hadaad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelkana furo saad u noqoto daawadaha u horeeyo daawado markaan fiidiyoga soo gelino waad mahadsan tahay. Nuur waxa uu ku dhashay gobolka Hiiraan, waxa uu ahaa agoon, waxa soo korsatay eedadii Xaawe oo deganeed gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Wadajir. Nuurna isagoo yar baa la keenay kuna soo barbaaray muddo sanado kadib. Nuur waxa uu gaaray da'dii qaangaarka, waxa uu ahaa dhalinta ugu firfircoon xaafadda. Halka ay Fartuun ku dhalatay degmada Kaaraan oo ka mid ah gobolka Banaadir, kuna soo barbaartay waxbarashadeedii ku soo qaadatay ilaa dugsi dhexe. 2007 waxaa dhacay dagaal aad ba u sameeyay degmooyin fara badan oo ka tirsan gobolka Banaadir oo ay ka mid ahayd Kaaraan. Dadkii deganaa hantidoodii way seegeen, waxa ayna door bideen in ay naftooda la cararaan kuna qaxeen degmooyinka nabadda ah sida Madiina. Fartuun reerkoodii waxa ay go'aan ku gaareen inay u qaxaan degmada Wadajir. Waxa ay kireysteen oo ay degeen guri u dhow Nuur oo daris bay noqdeen. Nuur waxa ay ahayd Fartuun gabar markaas soo baxday. Nuurna sidaas oo kale waxa uu ahaa wiil markaas soo hana qaaday. Xaafad walbana waxa ay leedahay jiil hal mar isla hana qaado. Nuurna dhalin badan bay isku jiil ahaayeen oo wada kaceen. Jiil kastoo kuwaas ka mid ah waxa ay haminayeen quruxda Fartuun. Fartuun waxa ay ahayd qof Ilaahay qurux u dhameeyay, anshax iyo usluubna ugu daray. Alla waxa uu siiyay hibo oo indhihii hal mar arko mar labaad ma eegayaan. Nuur waxa uu halgan dheer u galay sidii uu ugu guuleysan lahaa asxaabtiisa. Nuur waxa uu ka fikiray meesha uu ka bilaabi lahaa hawsha. Sidii uu u fikiray waxa uu soo xasuustay saaxiibkii Maxamed oo karantoolo ahaa, Fartuuna daris dhow la ahaa. Maxamed waxa uu xaafadda ku soo dhaweeyay reerka Fartuun, aad bayna isku fahmeen sababtoo ah Maxamed waxa uu ahaa wiil firfircoon. Maxamed waxa uu noqday xubin qaali ah oo ka mid ah reerka Fartuun. Maxamed waxa ay u arkeen reerka in uu yahay wiilka curadkooda ah. Nuurna waxa uu ogaa saaxiibkii qaaliga ah ee reerku inuu xiriir ka dhaxeeyo reerkana laga jecel yahay. Maxamed iyo Nuurna waa saaxiibo isku dhaarto oo isku sir ah. Waxa ay ahayd habeen Talaado ah 2009kana gabagaba tahay. Sida caadada ah way kulmi jireen labadooda habeen walbo. Iswaraysi kadib waxa uu yiri Nuur, qoftaan sidan madumaashidayba maalmahan dhinaceedaad u badan tahay. Maxamed waxa uu fahmay ujeedada hadalkiisa inay tahay niyow qoftay bar. Maxamed waxa uu ku fiicnaa isbaridda laba qof, hawshiisana saas bay ahayd. Maxamed waxa uu yiri ina keen saaxiib reerkan daawo u geynayay. Nuurna waxa uu doonayay inuu arko Fartuun. Nuurna jaanis bay u ahayd oo waxa uu furmay wadadii uu rabay. Waxa uu aaminay in uu guusha gaaray saaxiibadiina ka hormaray. ogsoonow in Maxamed ujeedadiisa ahayn jacayl. Waxa ay ahayd in uu tartanka ku guuleysto, balse waxa ku beermi doona jacayl. Gurigii baa la tagay, waxaana albaabka ka furay Fartuun. Dhammaan reerku waxa ay wada fadhiyeen daashka. Maxamed iyo saaxiibkii Nuur waxa ay bilaabeen salaaniga iswaraysi. Nuurna meesha reerka lagu baray, halka ay Fartuun aysan fadhin darinta oo ay fadhiisan geeska daashka.
ama sidaad xisaabta ku soo baratay angalka oo ay isku qarinaysay diraasaadkeedana ku diyaarinaysay, waayo waxa ay ahayd ardayad aad u dadaal badan kana muuqan jirtay kaalmaha hore. Nuur aragtida habeenkaas waxa ay ku beertay jacayl. Nuur waa nin jacayl galay. Habeenkii oo dhan waxa uu eegayay Fartuun, iyadana markay xishootay bay qolka ka gashay. Waxaa la gaaray xilli dambe. Maxamed iyo saaxiibkii waxay macsalaameen reerka, waxa ayna soo aadeen xaafadahooda si ay u seexdaan. Nuur subaxii wejigiisa ma uusan qurxanayn. Iskuulka markuu uu imaaday, kursi dambe ayuu ku fadhiistay isagoo oonan salaamin asxaabtiisa. Ardaydii waxa ay ka yaabeen aamusnaanta oo ay la tacajabeen, maxaa yeelay ugumay baran. Ardaydii oo walaacsan baa u tagay Nuur, waxa ayna ku dhaheen maxaa kugu dhacay. Nuur waxa uu ugu jawaabay waxba iguma dhicin walaalayaal, waad mahadsantihiin. Balse ardaydii ma oga, waa qof jacayl galay, qalbigiisana ku soo noqnoqonaysa muuqaalka Fartuun oo mashquul ku yahay, maankiisana ku maqan yahay. Sidaan ognahay, iskuulada Soomaaliya waxaa laga dareeraa 7 duhurnimo. Waxa uu toos u abbaaray gurigii uu deganaa. Waxaa loo keenay qadadii, balse maalinta ma uusan awoodin inuu cuno cunto. Qolkiisii ayuu tagay si uu u seexdo, balse hurdadaad ka imaan weysay. Ninuu jacayl galay, wax uu liqo iyo jiifba ma haleela. Wuu soo baxay, ileen meel uu qaadaba ma lehe, kaliya waxa uu rabaa muuqa Fartuun. Guriga Fartuun waxaa ku horyaalay geed weyn. Geedkaas buu soo fadhiistay si uu muuqeeda u arko. Nasiib xumo, maalintaa mayba soo bixin oo diraasaadka iyo hawsha guriga ayay ku mashquulsanayd. Ileen waa gabar, hawl guri kama dhamaatee. Marka uu muuqeedii waayay, isagoo aad u xun ayuu wacay saaxiibkii Maxamed. Markiiba uu yimid, maxaa yeelay agagaarkaba kama uunan dheerayn. Markuu yimid Maxamed, waxa uu arkay saaxiibkii oo fakarayo oo weji uu weligii ku arkin ku yaala. Waxa uuna yiri, saaxiibkay Nuur, maanta maxaa kugu dhacay? Yaa dhintay? Xaalku waa sidee? Sheekadu way dheer tahay, fadlan la soco qaybta labaad. Waan idiin soo diyaarin doonaa asxaabtanada. Waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saartaan si aad maalin walba u hesho qisooyinku cajab geliya. Waad mahadsantahay.